2019 programming markii aan bilaabay qof ila talisa qof ii hagta qof i waanisa midna ma aanan haysanin macallimiinta programmingka ku bara Soomaaliga way yaraayeen anigana Ingiriiska ma fiicnaan waxa ku qasbanaaday documentation walba inaan booqdo YouTube walba aan daawado Stack Overflow aan booqdo caqabada ay istaagto waxyaalo badan aan ku jahwareero ilaa ugu dambeyn aan noqdo full stack developer 4 bilood gudahood marka xirfadaas bartay waxaan bilaabay freelancing inaan ku shaqeeyo kadib waxaan bilaabay in shirkad front end aan la shaqeeyo kadib barnaamijyo aniga aan la aasaasto laakiin sababta aan kugu sheegay arrinkaas oo dhan ma aha inaan ku faano laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego wixii aan dhisayo dhan way sii bedeleen programmingka uu ka fududiyaa sidii uu ahaa waxaan haysanaa AI tools advanced ah qof aanan programmer ahayn yaa dhisaya project weyn isagoo kaliya qoraal qorayo qaab Ingiriisha arrinkaas waxay daliil u tahay standardkii aan qiinay ee ahaa programmingka baro bootcamp aad ama jaamacad markii aad oo dhamayso kadib shaqo raadi shaqo markii aad hesho kadib shaqaad ka shaqeey ku duqow ku guurso ku dhimo waxaas oo dhan way isbedeleen waxaan isbedelkaas xaqiiqsaday markii ugu horeysay 2022 markii aan project dhammaystiran full stack ah ku dhisay Replit anigoo aanan wax koodina aanan sameynin markaas waan taajubay waxaas dhahay qof hawshan qaban karo sidaan maxaa loogu baahan yahay programmer laakiin intaas kuma ekaanin AI toolska waxay sii noqdeen more advanced cursor intaas kuma inaan sii ekaan waxaa xigay cloud code hadda isbuucii la soo dhaafay waxaa update aan ku sameynaya project anigoo teleefankayga haysta yaa waxaan la kala baxay cloud waxaan tagay qaybta cloud code waxaan ku xiray GitHub-kayga waxaan dhahay isbedelkaas ku sameey featurekaas ku dar kadibna deploy garay cloud way baxday projectkii isbedel bay ku sameysay ugu dambeynna way deploy garaysay arrinkaas ma ahan kaliya wax iska dhacay waa wax isdul taagid u baahan programmingkii muddo aad soo baranaysay ama hadda ku sii socoto ka waran haddii aan ku dhaho filimkiisa ay baa cunay oo hadda shirkad walba iyada ayaa dhisanaysa software uma baahnaba developer ama shirkad tech ah sidoo kale haddii aad tahay junior developer ama developer 1 ilaa 3 sano ama 2 sano meelahaas ku jira shaqadaadii si adiga ka fiican waxa uu qaban kartaa AI hadaba programmers ku waxay isweydiinayaan garaado kaliya waa naga nixisay maxaa sameynaa marka ma beeraheena ku naqanaa laakiin softwareka uu ka xiiso badan yahay sidii uu ahaa wax walba software uu dhaxgalay wax walba code baa dhaxgalay dawlad ha noqoto shirkad ha noqoto shacab ha noqdaan softwareka waxa loo baahan yahay si ka badan sidii loogu baahnaa kaliya waxa isbedelay sidii loo sameeyay waxa ku sheegay marka 4 xirfadood oo ay muhiim tahay zamankan 2026 wixii ka dambeeyay inaad taqaano horta xirfadda koobaad waa inaad taqaano sida AI toolska loo isticmaalo iyo ama agent orchestration waxay ka kooban tahay inaad leedahay test AI-ga markii jawaab ay ku siiso ama wax ay develop gareyso inaad damin karto oo aad dhigi karto waxaan waa sidaan u rabay ma aha sidaan u rabay markii copy sheekh aacto dhadhankiisa soo waafiicay ama ma fiicna madhayd salamada AI-ga inaad dhahdo promptigan jawaabta ay siisay way xun tahay ama way fiican tahay testigaas waa muhiim iyo judgmentigaas labo inaad maskaxdaada ka saarto inaad developer tahay oo aad isku xaqiiqsato inaad tahay builder developer waa kaliya qofkii yiraahdo hawsheedu waa inaad react ama next.js ama backend ama mobile ama waxa develop garayo kadibna inta la idire kaliya aan sameeyo aan ka leexdo laakiin hadda waxa u baahan tahay end to end inaad adiga mas'uuliyadda aad saarto product engineer inaad noqoto userku wuxuu u baahan yahay aad fiiriso aad samayso sababtoo codingka wax hadda shaqo badan kaaga ma baahna waxa shaqada ugu badan kaaga baahan waxay tahay inaad dhahdo waxaan ku soo diray userka ma u baahan yahay haddii taa ku soo darto ma u baahna akadiiso sidee improvement u sameeyo userka feedbackiisa aad dhigsto speed aad ku socoto iterationka aad badiso markaas waxa xaqiiqo ah 99% dadka inaad ka hormariso 3 inaad industry aad dhex gasho marka kula industry dhex gal AI iska isticmaal wax walba sameey laakiin waxa ugu adag waxay tahay wixii userka u baahnaa inaad ogtahay si aad ogaato waa inaad hal industry aad gashaa waxay noqon kartaa waxbarasho waxay noqon kartaa logistic waxay noqon kartaa caafimaad ama healthcare waxay noqon kartaa finance waxay rabtaa noqoto inaad industry si fiican u taqaano industrigaas aad product macaamilka si dhab u baahan yahay ku dhex dhisto
isla soconaa. waxaan rabaa marka inaan kusoo qatimo laba talo oo aniga shakhsiyan waqti badan igaga soo baxay. 2023 waxaa sameynayay kambaniga waa aasaasay, waa diyaariyey, macaamiil waa helay, laakiin hal caqabad baa ay haystay. caqabadaas waxay ahayd distributionka, ma ahayn product. caqabada ugu weyn ee adigana kuweysan doonto waa distributionkaas, waa audience, waa shacab ama dad waxa aad sameynaysa u baahan oo dhankaaga ka imaad inay leeyihiin. caqabada labaad waxay tahay adiga intaa wax dhisto userka hala hortegin. userka hortag, dhegeyso wixii uu ku yiri, wax ku dul dhis. technical developer ama technical builderska waxa dhisa caqabadaha ugu weyn ee ka cabanayaan waatan. anigana waa haysan jirtay in website qurux badan ama wax qurux badan aad diyaariso, laakiin qofna waan u baahnayn. marka koobaad waa muhiim dadka wax u dhisaysa inaad dhegeysato. arrinkaasaa jeclaad inaan kula wadaago. haddii wax su-aala aa qabto mowduucan ama mowduucyo kaleba commentiga igu soo qor. haddii aad rabto in la talin bilaash ah heshana booqo thegaraad.org. waxaan ku xilsaaraynaa mentor kula taliya ku dhegeysta si bilaash ah. موضوع عمال قاعدين وكنا واحد اسمين ماركس وكنا تصار HTML فاونديشن كذا برنامج تاجس استراتيجي CSS فاونديشن كي محاور فونديشن بدو يحاول تطبق له الحبرنا وشابسكريبت بيزك باي وكي بعد ما